mana waxa kamid ah dadka Yurub iyo Mareykanka way ka yimaadaan xagga bay yimaadaan hadaa weydiiso waxa leedahay sidee dareemaysaa oo ku heesta macaan oo ku dhaha marka bilaabaysa soo haale markaas wuxuu leeyahay qaraar u ahaa dan ma fahantid something is wrong balkan maxaa ku jeclaysiin soo macaanaad marka hore qaraar u ahaa okay mana waxa leedahay dad dhankiisu kharaar yahay mana wuxuu ku sheegayaa waxaan wax fiican hayn bad mana afkaas inuu fiicneen gadaal dambu kaaga macaanaanayo ku leeyahay imika adigu maadaama waxa uu kharaar yahay dad waxa jirana daawanayo oo leh joint waa caadi buu leeyahay ninkani qaadkiina caadi ma aha buu leeyahay oo aaminsan in ay joint ka xun tahay qaadka aad u aaminsan baa jiro ka dhaadhicin karin geedaha inay ka xun yihiin jaadka inuu caadi yahay dad bay saa u tahay laakiin runta markaan ka hadalno jaadka waa waxa dib dadka u dhigo balan hadaa qaad waa ka bixisa maxaa ku soo haray dad lama macaamiloon kartid soo taawad fadhida maalinta dhan xitaa aragaaga ilkahaaga uu dilaya waa ilka dhacsanaysa mar labaad ilka dhacsanaysa adoo weynaata dhacsanay mar labaad ilkaha wax ka xunna mala marka ilkahaaga aragaagina ilaaliso fiicanta jaadka dad badan oo aniga asxaabteeda familkiga qaar kamid way cunaan ana kula talin lahayn iska dhaafaan okay dadka qaar baa ibika na daawanayo ardaya ama adiska dhalinyaraha oo leh doonbiyo ka warna hadaan jimcaha kaliya taqaylo oo malaha maalin walba qaylo how is that Friday waa jimcaha sama hadaan maanta kaliya fadhiisto Friday waxa maalin walba fadhiisan ka waran badana Soomaaliya laga yaqaan asaas yes dhalinyarada waxa sameeyay dadka weyn waxa mas'ala waxay dhahan maanta waa jimcaha jimcada markii la gaaro la soo qadeeyo waa la soo baraxdaa waa la soo dhigtaa so what do you think still geedkii la cunaysa jaadkii la cunaysa anu waxaana dhici kartaa habeenkii oo dhan inuu ku soo jeediyo laakiin geedkan kale aniga aan isticmaalo just one hour waa isku dhamaatay akadibna 30 minutes waa andeen uu ka baxay that's it laakiin kan maanta orana wadaysaa biyo ku cabaysaa a lot of waxa isticmaalaysaa kharash shaaha isticmaalaysaa caana cabaysaa inta cabaysaa ina istaagin musqushaad ka wahsataa dhici karto suuligaada aadan ya haddii kaadi ku qabato xataa inaad wahsato dad badan waxay jirtaa hadii daawana qaylayo oo faansan oo waasana ninka walahi ay faansan oo dhahay fiir yaa way jirtaa saas dad waxa jiro marka la soo waco haduu qaylayo wuxuu sameeyo garan weynaa iga qabano la hadalo dhaha ma joogade ama ani saan hadan waxa wali fahmay qaylayo kale yes salaam aan imika soo sheeg weydiiyay ahayd dadka jimcaha waxa falistaari idea ayaa maraa ka dhiiban karaa waxa oran karaa wadada yar ma aragtay imika daaxan ka baxay albaabkan waxay diibis hada highway-ga waa sii soconaa hadana meel kale wadooyin badan aasi ma maraa marka hadda jimcaha fadhiistaan waxaan aaminsanahay maalinta kale khamiis iyo jimcaha fadhiisanaysid jimcaha hadana bisha ku seegtayna asaasan aaminsanahay aada weyn sitiin waa raacinaysaa qaad kuna malaha dhibaatada uu leeyahay kaliya waxa weeyaan ma ereygaaba ka fahmi kartaa qaad gadaal u akhri qaad daaq weli ayaa kama fikirin sababtasan kuu leeyahay baasho isticmaashaha adiga aniga bad imika manaa idhaanta marka idea kale leeyahay aada weyn marka qaad markaa fiiriso dadkeena Soomaaliyeed ku nool geeska Afrika qaad ereygaas gadaal markii loo akhriyo waa daaq qofku daaqaya marka maanta dhan uu fadhiyaa been ma geedna uu daaq magacii waa fiir aniga ma dhigin magacii marka gadaal uu akhriso waa daaq yaa ka dhigay exactly original name ku lahaa qaad waa daaq waana baryayaa marka had daaqina dhaaf maana ani waxa u sheegi lahaa dadka laakiin waqti qaata niguma qasbay hadda inaad dhaaftaan mijinta iska dhamaysan faantaay laakiin adi gal shaqadii aad ku joojin lahayd bilow processka ku joojin lahayd waxaad bilowdaa hal sabti ama hal jimco inaad gas u siisan faantaay haddana labo jimco 2 weeks amaraysa 14 days and then 15 Allah koorani maxaa qabanani yani shaqada ma ay imika tusaalaan a lot of things ay qaban kartaa dadka qaar aaminsan wax la qabto nolosha inay jirin baba like they think in ay jirin baba hadii mana waqtigan qaylisti saaco inoo kala soo qofku laga yaabo inuu fariisto labada doornimo ama saw taqaanib 14 kadibna uu ka kaco 22 ama 10 saddex ku yaqaanaan almost 12 hours free marka intaas aan waxa aaminsanahay gaari indiis samayn karo walaana qorrada ma afka qorrada ina la sameyn karaa misna inta qof fadhiyo iska fadhiyo uu ku sameyn karo iyagu laakiin waxay ka oranayaan dadka qayla maxaa qabanaya malaha waxay aaminsan yihiin baadii qaad kala daayeen wax kale la qabtay in jirin ama laan inuu geysay oo kale yes malaha wax kale la qabtay ma jirto hadda kornin oday Soomaaliyeed wuxuu yiri hada fani alla yaab wuxuu dhahay waqti qabo waa lagu jiray markaas wuxuu dhahay waqtigaan oo kale ama laan hay ama look hay ama lag hay marka laan maxaa meesha ku soo daray ma labada kale waa ku qaatay lag waa hilib
lugna waa lugta aan ka siinaya laakiin lugaheena maaya kuwii kale okay ama laan hayo laantaas ilkay ka riday please waa laanta lacag mi ka dhigana ya laanta lacag mi ka dhigana ama lacag hiya dhaanta ya saddexdaas laanta bedelkeeda in lacag ka dhigana feenad yes mid kale tan jaadkan wuxuu leeyahay bahal dubaab la dhaho dadka they don't know that dadka badankooda waxay u joojin kari waayaan that's the problem waa waxaas dadka u yimaada la sheegayo sababtoo adaa cuni weydo lagu imaanayo lagu leeyahay way jirtaa waxaa jira qofka hallucination ku dhaco markuu habeenkii isku dayo inuu seexdo wuxuu arkayaa family dhan oo macnaha asagoo ku xaroonayo okay asagayba dhex galaan macnaha asagay kiir galayo soo qabanayo ama bahal ku galayo ma fahantaadi ama family dhan oo dooli iyo wax daba socdo dhex galay waxaas intee ka yimaadeen waa maskaxdaada waxay sameysay ama lagu dilaaba ilaa waa gadan weysa jaadka gadan weysa ani ahaanteeda markaan fiiriyo waxaan arkay geedaha jaadka big business inay yihiin and something in lagu sameeyo ogaa Soomaalidu waa walaalahay runtii oo sheegar waa something in lagu buufiyo ogaa haddii aad dhaaftidna dubaabka waxa keenay waxay tahay sidee nooga tagtay kaalay ma qaado mar labaad laakiin maalinta jaad dhaafto aswaya ilaahay magaciisa ku dhaartay waxa arkaysa weydkaaga will be normal weydkaaga caadi noqonaya cunta cunaysa dadkaaga la dhaqmaysa familkaaga xasuusanayni jiraan u tagaysa ya absolutely marka nin waxa jira jaadka u doodi jiray hal istaajiyo magaciisa iga maqan ya qaldid halkaan ka salaamanay aad u fiican ya qaldid magaciisa kale muxuu ahaa Abukar Cawaale hal dhanaa jiftay laab jeexnalkii idamiya naga tagriya alaabta soo artay malena I love it waa ku heesta sababtoo dadku wuxuu ku dhiirigelinayaa inay jaadka joojiyaan aad weyn taqaarnay ka xumaadeen dhici karto laakiin wanaagiina ka talinaya inay ka dhacsataan mar labaad asaxta uu cuni jiray wuxuu ahaa forma jaad هو اسكت في فما وحوها مرقان وهنجر اسكت في جواب في عالم سيسي إن شاء الله واحد شلال لأن مركي لأن قاعد يضو فاب أتى قاعد كان الله وقته وملا وقت ده لو قاعد إن شاء الله واحد شلال مركي لأن قاعد كسي في عالم وقاعد الله وحياة بدان مرا سيف فلان قينو لكن هذا واحد شلال لا دوني بيو سوشيال ميديا وحلا لا أذكر أنا كشري هذا كشري ضد كحاجة دم كاميرا ويقف عتها لكن أوقات عادي وكحاجة بدنا هذا وده شلال هذا marka imika xiliyadan adduunku iska khalsan yahay dagaal yar jira mana waxaas ku kacsan ruushka iyo dadkan kale iyaguna marka hadii la imika inaga wala maamula Afrika iska day mugta xad kala goosto wala goosto waay been ma adduunka saddexaad waxa loo dhaw asaastaan yes aad u dambeynaan faa'iido marka hadii la tashanayo ma aragtay la tashanayo taladeena ma soo gaadhay marka la soo tashado wixii lagu soo tashaday inaga loo keenay waxa ku dhaqanaa aad weyn insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaguna hool sameysano inuu ku dhaqano waxayna dadka u baahan rules kaasna wuxuu ka imaanayaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta maalin uu hadlay wuxuu yiri borders kan oo Afrika anaga ma sameeyno waxa fiican inaan ka leexino inaan iska qaadno xuduudaha oo dhan Afrika idan Afrika xuduudeedu waxa sameeyay qof banaanka ka yimaado cad oo sandheer leh okay indhiisana green iyo blue gaayeen qofkaas sameeyay border kana u jeedin waxa sameeyay dad cadaan ah dan anaga ma sameeysan aan iska qaadno Afrika markay inay hal noqoto waxay ka bilaaban kartaa xuduudaha inay iska qaado ko maana iyagu cad isku maleeyeen boodii iyagu kale iska si loo dhaho United States of Africa intee joogtaa USA da xaga ma aha USA Africa United States of Africa riyadaasna dad badan oo dhalinyaro badan oo Afrikaana West Africa Central Africa East Africa way ku jirtaa riyadaas aan maalin rumoobeysan waa ogahay Afrika hal noqonayso hal hadday noqotana Afrika waa power house waa ogtahay